dagaal baa bilowday reer cali wanaag nima la yidhahda ku bilaabeen oo ugu yar reer cali wanaag jilib yar oo reer cabdilla ugu yar weeye reer cali wanaag raasa reer cali wanaag bay ka qaateen shaqaash dhegeysta waxbaan idiin sheegaya dulmigaan idiin sheegaya reer cabdille isagoo laandheera abulla deganaa shaqaashin dhagaha lagu dhufto oo nebiga loo qoro oo laga kaxeeya waddanka oo reer cali wanaagna la difaaco way awoodeen laakiin ma ayna yeelin arrin khalada bay ahayd reer cali wanaag dagaalkii uu ka soo gudbay reer cali wanaag markii lasoo cunay aadan khayr baa laisla soo galay aadan khayr aan idiin sheego absamaha dhulkaa dega 3 dab bay dagaalka u galaan 3 dab maya 5 dab bay dagaalka u galaan 3 waa aadan khayr sida la ii sheegay 3 waa aadan khayr 3 dab bay dagaalka u galaan dabna waa timacase waa niman absamaa oo jidwaaqa dabna waa reer cali wanaag iyo shishoore 3 dab bay dagaalka ku galaan dagaalkaa berigaa hore reer cali wanaag kaliya loo daayay kadib waa la iskala soo gudbay dagaalka u weynaaday aadan khayr baa la isla soo galay qaar ba waxay isleeyihiin qabiilka iska daa qabiil waxuma dhimaya anugu dagaal baan ka sheekeynayaa iyo taariikh iyo wax dhacay baan ka sheekeynayaa qabiilka iska daa haddii adigu aad aaminsantahay oo dadka qabta qabiil wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu ina akramakum cinda allahi atqaakum in allaha caliimun khabiir ilaahay baa qabiil inaga dhigay okay reer cali wanaag waa dagaalkii aadan khayr 3diisii dab baa dagaalka galay fooda waa la gelin waaya dagaalkaas sidaas ku istaagay cabdi ilay baa wuxuu u xukumay raaso inay iska degaan ogaadeen markuu tashaday waxaa la yidhi war meesha ha degeen quba qabeeyku waddanka weyna la degi jireen ha la daayo saasaa lagu daayey iyagu waxay aamineen xoog inay ku qabsadeen dhul qofka bini aadamka ee islaamka ee walaalka ee dhulka kule inaad dulmida ma fiicna ogaadeen markuu tashaday ama reer cabdilla tashaday waxaa la yidhi oraandayn cabdi ilay raaso uu sharciyeeyey isaga u sharciyeeyey isma taaban kartaan xabad midkiina sida waan weerarayaa buu yidhi dagaalka hortaa hadda bilowday sheekhaas raaso markay qaadatay waxaa la yidhi gobolka erar oo dhan aynu qabsanno dagaalkuna wuu ka wen yahay raaso waana dagaal ku wajahan reer cabdillaha dhulkaa degan baryahan oo dhan beriga cabdi ilay uu joogay anugu hadda si ay wax uga jiraan majawar ma hayo anugu waxaan aaminsanahay hadda dee inay ilay mustafa wuuba la jiraa iyagu la jiraa laakiin cabdi ilay berigu jiray hubka laga soo qaado xamar 7 gaari oo rasaas iyo hub wada goday mar lagu qabtay baa jirtay laakiin mustafa hadda haddii la qabtay inuu u sii daayo dhihiyeen kale anugu I don't know laakiin mustafa siyaasad ahaan hadda uu ku taageersan yahay arrintan tada dagaalkana garab buu yahay waa xogta dhabteen anugu helayo anugu meesha inaana joogin waa kays kale laakiin xogta dhabteen helayo dagaalkan macnihiisu waa maxay 2 qodob weeye macnihiisu 3 option 3 macno leeyahay dagaalkanu 3 macno buu leeyahay kow sheekaash oo dhul raadinaysa dhul ayna lahayna inay qabsato rabta 2 oo dagaalka iyagaa wada 2 mustafa oo dagaalkii siyaasadeed ee isagu uu ku jiray ee xaafadaha xaafad ka mida uu kula jiray jahayn hayo isaga in laga sii jeedsada raba 3 mustafa oo raba oo dhaar ku maray horeyna waan idinku sheegay hadda waan idinku celinayaa mustafa afkiisa waxaa laga hayaa niman kibrey oo reer cabdilla la yidhaahdo ballan waxaa iga ah laangaabna inaan ka dhigo minorityna kaga dhiga degaanka 30 degmo bay leeyihin reer cabdillow 60 degme ogaadaan ku sheegto ogaadaanka kale 60 markay yeeshaan reer cabdilla 30 mustafa waxyaalaha caddaynhaya inuu dagaalka isagu abaabulahayo oo isagu ka dambeeyo baan idiin sheegahayaa kow ciidamo liyu boolisaa fadhiyey meesha oo uu kala dhex dhigay maalinkii hore ciidamadii liyu booliska ahayd odayaashii reer cabdille iyo isagu way saf garan waayeen waa intuuna dagaalku dhicin ciidamadii wuu qaaday maalinkii ciidamadii uu qaadayna wiil sooman oo reer cabdille aadan khayraa la dilay oo soonku maalinku bilowday iyo daraad khamiistii inay ahayd baan u malaynayaa waa shirqool dagaal u ahaa sheekaash markii ay diyaar garowday hela bilaabaa layi nin baa la dilay
kow ciidankina waa laga qaaday mustafa markii arrintan ay dhacday odayaashii sheekaash iyo odayaashii reer cabdille labadaba waxay ugu tageen magaalada jigjiga odayaashii sheekaasheed markay u tageen hadallada la iiga soo sheegayo ma inaana aanu ku dambaabi karin oo meesha joogin laakiin hadallada la ii keenayo hadday been noqoto dambiga qofkii iskale baa iskale waxa la igu yiri mustafa wuxuu yiri nimanku way kibreen xaggankada iyo dawladdan ana ka cadaabahay ee laba dhaban la aan gelino soo garaaca odayaashii sheekaasheed buu ku yiri odayaashii sheekaasheed intay saa u dhowreen inay dhaheen baa la ii sheegay maslaxaanu kugu nimid dad wada dhashay baan nahay annaga markii aan isku dhamaan gayaadnay iyaga noo soo gurmaday tolaan iyaga ahayn ma hayno ee waxa aad ku hadlayso waa maxay oo ka soo laabteen warordayga baxaadayda nimanka leeynayni inuu yiri xogtay soo gaaraysa waa taa odayaashii reer cabdille albaabka inuu ka xidho inuu la hadlo uu diiday xogtaana way soo gaaraysaa waxa laga yaabaa dad badan oo jigjiga jooga xogogaala ama arrintan iga xogaalsanay jireen laakiin xogay soo gaarayaan aniga way dagaalkan kadu aynu minority ka dhignadii soo sal kuma yeelanayo kow dagaalkan kadu dagaal siyaasadeed oo mustafa iskaga jaynaya dadka Soomaal noqonayo labo dagaalkan kadu dagaal saddexaad oo sheekhaashay dhulka ridda ku raadinayso Soomaal saddexda macnu yeelanaya dagaalku soo ku bilowday dagaalkii baan galaya marka dagaalka waxa bilowday sheekhash waana idin sheegay waa tan hadda idin sheegayo ciidamada liyu booliska kala dhex fadhiyay oo dawladda ay sogaayeen markii laga qaadayna isla markii wiil bay Soomaan bay dileen qoladii aad khayr wayaacaan rag 6 ama 7 ilaa 8 la sheegayo yay dileen oo sheekhash saddex meelood dagaal ka soo qaaday meelihii ciidamada ay isku horfadhiyeen meel aan ahayn oo tuulo ah oo yaro shacab joogto bay tageen meesha afarnin bay ku dileen dagaalku wuu socdaa hadda sida la ii sheegay xogta la ii sheegayo dagaalku kanaan isu kanaan cunay kaadna waa tagtay beenaalow hayano dagaalku hadda wuu socdaa sida la ii sheegay gobolka isugu dhacay wuuna socdaa dagaalka hal dhib baa jira dagaalka arrinta ugu daran ee jirta aan idin gala marka detailska ciidan liyu booliska Mustafa diray kidambe miyuu ahaa ninka la yiraahdaa ciidanka wata amar baa la siiyay waxa lagu siiyay amar magaalada Salaxaad inuu tago waxa la wixii reer Cabdillah warkan uu ka ururiyo u fiirsada hadalkayga Soomaaliyeed u fiirsada dagaalka meesha uu ka socdo tog baa ka sokeeya toga shishadiisa la isku haystaa dhaawicii lama soo qaadi karo xitaa waxaan hayaa qolada reer Cabdillah dhaawicii rag soo gudbinayay togu inuu nin la tagay oo saa uu ku dhintay xitaa baan ka warhayaa togu inuu nin la tagay oo dadkaas xitaa sida ku dhintay baan ka warhayaa ciidankii Salaxaad bay tageen magaalooyinkii ay joogeen nimanka aan khayr ciidamadooda ay joogeen wiilala dhaawac keenay hubkii waa laga qaaday hubkoodii waa laga qaaday waxa la yiri magaalada ninka bixi kara ma jiro gaari dhaawac soo qaadi kara ma jira la yiri togashadiisana waa la isku haystaa wiilasha cunto ma haystaan taakuleen iyo rasaas ma haystaan waa dagaal toos dagaal uu la safan yahay ila cagtar uu dagaalka ugu wada reer Cabdillah anigu waxa ma qariyo wiilashi dhaawac waa loo diiday wiilashi qoryoodi waa laga qaadaya nimankii kala dagaalka iyaga wada weerarkan iyaga wada iyaga hubkoodii iyo gaadiidkoodii dhaawacna way ku qaadanayaan dagaalkana way wadaan u fiirsada Soomaaliya la fiiriyo dagaalku halkaas u maraya dhaawaca dagta shishe ciidanka dagaalamaya ee webiga toga ka shisheeya dhaawacoodii way ku dagaalamayaan hal nin oo dhaawac lama soo qaadin kuwa sheekhaashta gaadiid baa gurahaya hal nin oo liyu boolis uma tagin hub lagama qaadin dagaalkooda iyo weerarkooda lama joojinayo ila fiirsada أروح أغلى نبتها فرت إذا كسارة يا أما حروضة أما ديكو هذا كوكرة إذا كيدين طلع أوكي ما ماشي طالع مركب وضد سلانا وحكوا باغا يا إلهي نكرة قبوتشي وبالها والله وحكوا باغا يا dadka dulmiga wada ee sheekhaashta ilaa xamar iska soo urursaday inay dagaalka joojiyaan haddii la waayo gobolka erar qoraxay gobolka nogob waajib waxa idinku dagaalka inaad gashaan waajib waxa idinku dagaalka inaad gashaan oo sheekhash dagaalkiisa soo afjartaan
haddii sheekhash ay dagaalka joojin weydo waajib waxaa idinku aan liyu boolis iyo mustafa ha idin laayeena dagaalka inaad gashaan anugu saasaan idin leeyahay ilaahayaa kala qaboojiyo waa dad islaana haddii dulmiga sheekhaashay wadda ay joojin weydo ee ina caagjarna uu garabka ku siinayo gobolka nogob gobolka qoraxay iyo gobolka erar waajib waxaa idinku dagaalka inaad gashaan markay ugu yar tahay 10,000 oo ciidan inta u dirtaan laba beri dagaalka sheekhaashaad ku soo aftirtaan aniga saasaan aaminsana haddii aad diidaan gabadhiinu baag male anaa idin sheegaya hadda haddii aad diidaan oo cali wanaag shalay inta la soo cunay maantana aadan khayr la soo cuno nagasti who is nagasti weeye sheekhaashna ogaadeen way ka daaweyn tahay ogaadeen way ka daaweyn tahay maalqab wayna ka maalqabaysan tahay runta markaan idiin sheego dagaalkooduna waa dagaal siyaasadeed waa dagaal islaax ilaa Soomaaliya wadaadadii hanjabaya xabarka hanjabaya ee arkayseen ee riisamka waday ay wadeen way ana runta idiin sheegaya haddaad moodaysaan dagaalku inuu yahay dagaal laba beelood oo ka dhexdhacay waa dagaal siyaasadeed waa dagaal Soomaaliya laga wado waa dagaal carab laga wado waa dagaal caalamka oo dhan ka socda way kuwa meelaha ka hanjabaya intaas waa intaa waxaan arkayay niman badan oo reer jarareeda oo aad u caytamahaya ninbaa wuxuu lahaa dadka waxaa ugu ayaan daran reer cabdilla ninkii la dhashay sheekhash baa dhulka qaadatay sheekhash baa ka adag sheekhash baa sidana adar horta jilibka la dagaalamahaya waa jilibkii reer cabdilla ugu yaraa adiguna xogaal baad ka tahay haddaad runta ka hadlayso waa jilibkii reer cabdilla ugu yaraa dagaalkaada jilibka sheekhaas ay la dagaalamayso adiga markaad reer dhagax buur tahay adiga kuwa miidiyaha qorahayow qofka bini aadamkuhu ninbaa waxaa laga sheegay kuwa meelaha ka caytamahaya ee reer cabdillah dhul laga qabsaday low haddii aad aragtaan haddii aad saaka soo sheegtaan tuulo reer cabdillah oo nin Soomaali oo qabsaday sharad baan bixinaya nimanka aad ka hadlaysay hadda dhulka degan sanad walba dhul bay qabsadaan oo ma ka qabsadaan hadda ciidanka dagaalka galay ee khayr waxaa la ii sheegay laba furmood oo inuu kaga jiro oo kale oo aan ahayn shaqaash laba furmood oo kale inay jiraan waxaad soo qaadeen qaarkiin ood ka hadasheen dhabar roobla sidii la idinka qabsaday dhabar roobla reer dalal baa jooga ana hadda ku sheegaya haddaan adigu daamtooda wax garanayn laakiin adiga magaalada awaare dhagax buur intee u jirtaa bal aynu ka hadalno awaare dhagax buur intee u jirtaa yaa lahaa meesha la yidhaahdo dekeda yaa lahaa yaa dekeda lahaa ma ii sheegi kartaa jilibka ugu badan ee ogaadeen marka la yidhahdo dhul laga qabsaday ibraahim maalinkii nimanka garaxajisay habaryoon isbarta ay dagaalkoodu ka bilowday buu joogaa dhulka bayna qabsanin reer cabdillah kama qabsanin laakiin dhulka la qabsaday ee gacanta uu ka hayo iidoor ee weliba ciidan galo oo iidoor ugu yaro garaxajis ugu yaro ku haysto waa dhulka waxa weeye reer saaqoy aynu wada hadal xaqdan ka wada hadalno adiga oo sidaas oo cawradaadii bannaanka taallo oo dhulkaagana ku xaragoonayo inaad dhahdo reebel baa dhul laga qabsaday car tuulo reer cabdillah la qabsaday sheeg ma sheegi karti ma ina qabiilaysta ahay laakiin every action reaction qofku haddii uu daam yahay oona garanayn waxa uu ka hadlayo qofku hadduu daam yahay oona garanayn waxa uu ka hadlayo haddii uunan isagu isfiirinayn war hadoo lagaa gar helayo oo aan dow haysanin waxba ragga lama hor istaago ya adiga car ninka ogaadeen oo dhan ku jiraa meeshaas nin ogaadeena oo aan reer saaq ahayn oo reer dhagax buur ahayn oo dhul laga qabsaday car soo sheego car waa ninka ii sheegi kara yaa ii sheegi kara ma ii sheegi kartaa maya ma sheegi kartid dekeda yaa lahaa reer haruun baa lahaa awaara yaa lahaa reer caligii laandheer aan ahayd ee sheegan jiray baa lahaa yaa igu haysta ma ka jawaabi kartaa ya nin ogaadeena car nin ogaadeena ragga ila hadlahayo facebookga dhex ordahayo ee reer dhagax buurow nin ogaadeena oo 6 sano inta geel laga qaaday geeliisi loo celinayo iyo door waan celinaynaa leeyahay walaadii hay soo saar adoo ogan ninka sanad walba waa wada qayili jiray ninka geela aan ka qaaday isaga afkiisa kala ninkii ciida kale
عرننا رد يحبورها هنا جالس اللي إحنا سنة تلا هيستني كهيستنوجا لا قيل الشري السجينة آير جالسي آخرين تكبغنيك يدرسوا عليه ولا دقها الشك بروح قال الله يسفيري بعشور ريسان يا ما يسا هذا العورة هذه وبناك الله يا الله يا كل دوري اللي يدو جيلاك اللي جوسوا عليه هذا نقول كاجي الله يستحرق بعد وحكي الشيء يسا إلى أرق إلهي بنكو كوداري يا إلى أرق دقالك الشخاش واسو أفتر دونانو أنا كل شيء جاي هذا بالله وحاجة الشخاش إن شعبه أو أنا شعبي نقطة إيه أنا سو أفتر هنا كدقو هذا الكايجا صحي وهو بال بكبل الله إنا عكسنا كلا حدودك كوي قرمل لها عليو قريها كوروريو لكن شخصنا سوف ترى بالله كايجا قاضي هذا ما تاي سو هذا الله يأكل دوري لدي ما يقال يقول علم هاي يا والله أنا كلا دمين نك إلهي بان كوداري جالي سبانو عليي ونك يدور كورياي نبرهم لرياض الباتشوغا أنا أنا رياض الله نبرهم ليا شوغا والله رياض البات كان مانتا صدق بقولوا قولوا قول رياض البات كان سب أوه برتي وديالك كود الشري يعني يقول حسن رسكين لين شري بارانو ما تتاجنا ما حد يقول هذا مرك ورا لا يأكل دوري نكاس وانو ولا غير الشري جالي سارة إسكعلي أنت أصلا سنان هيستي نين أهل يعبورها هنا وقالوا شكلها باللايمو بحدكوا هذا مركزات رجله يدور بالله قاطع يدور لا قاطع حقو ديالكوا ونحمرة شخاشة حقو دول لا قاطع ونأكلنا لكن شخاشنا أنا نقول تشيون هيسكتين أنا قصور شخاشي لما تجتين وادي لو دي دول رأس ما تجتين دول رأي عبد الله سوما تجتين هذا الرأس تجتين حق ما نقوله because وانت ضد كده جنب حين مالي دول كم تجنا محاولة تبعرك هذه الهين حوليهم يا بل إلى عرق إلهي بانكو كوداري سو شخص دول كينا دقرين موجد ها تهدي قاسي بعد هالكايرو دينا هذا حق بانو ليه ودول دول كي دقرين وانا داد سوماليات هذه لكن الله يأكل دوري جالي سبانو عليه حوق انت كايا قاطو أنا حوق ليه ما قادرين دول ده يا دول حوق ليه ما قادرين تولا رعب دل السنة دول بورا ما دول بوك قبصة سقطين هذا أنشوجنو every year قبل يخور لأورا ما بوك قبصة رعب دل با يا الله شو اللي ديوان قريه هذا دكتور يا ذكر أو وين بقى الخير الرجال على الوراق يا قبصة ده اللي ما كان شارع يا بيادقوا هاي ستا ما حد كده هذا مركزات هذا صدق اللي جوجو بحيو اللي يلاقي نوع علينا وريا الله كله وراي أي نوع علينا أو تميديا سويستاجي وضع إذا قالوا لي قال أنت أصلا صار هيستي ninkaan ka qaadayna maalin walba wada qayili jiray ilaahay baan ka baqayo ilaahay nin looga baqay oo geelisi loo soo celiyay Allah yaa ku dhowray la yiraahdaa jira ma beenba ma heshoonaysi miyaad yaxyaxaynin ya okay mid baa wuxuu soo qoray xoog bay ku dageen xageed dagareed waa yahay adigu meesha aad degtay waad fiirsay dhulkii ka weynaa ee sibi ee geelu ku dhali jiray dagareed xagee kugu dambeysay nin baa sheekhash xoog bay ku degtay raasay yiri kaba soo qaadina xoog ku degtay dhulkii ka weynaa ee gobolka sibi oo dhan naga maal qabeenkeeda iyo hantideeda iyo xoolaha daaqa sheekhash bay ahaayeen xagee aadeen soriya abdullah ma istamaad taamiyaad ka fikirtay xoog bay ku dageen waa hal qabalay waa degmay waxaad ka hadlayso dhulkii sibi ee geela sheekhash ku dhali jiray حاجات كدن بيسي قفكوا وايرو فكروا كمان جايز يا والفيسبوك وحبها سوق القول إن الرياء عبد الله وحن دول كذي ولا قاتها شخاص ودول كقاتهين شخاص دول كوي دقي شرتي قبل دول أو قبل كسبي أو شخاص دقي شرتي بالرياء عبد الله يستا راسك كنا أنا كوم مقطم معه ضد كل كوي دقناين هذه السنة هذه وحاجات دقي شرتي دكدي حاجة كوجو دم بيسي حاجات دقي شرتي رياروني ريا على حاجات دقي شرين حاجة كوجو دم بيسي لوك عيدا كلا دقي يهودر ما ترير ساق بالها يا واحد سارنتا هل تورو أو ما تيدور دقي يهودر لوك عيدا كلا ودقي يعني ورير ساق لهين بتشرو
يا أذر أولي ما لقوه دورة لا يدي أنجيل السبار يسيعني يا أنت ميديا لقوه سوقر عيب وينا عورو مش معقول سومالي محمد أدمان دي السلام هيا لكن واحد دي شيء دجالك أنا أكثر بكتب بيه دجالك أنا أكثر بكتب بيه دول بلاش الشيخ أشياء أول بويسير بتلاقيه كمان يديرينكن هدي الدولة ألكتاي وعندك كجرا ما يسار رع عبد الله روك كجرا يا شيخ أسر روك يجرمت كيا وسو أمبلا أستقول سيجاريا شود لكن تتسامي يكون معنا يا تتسامي يكون معنا يا مايا سلامات من كل أفات بالله قف كدول بوضنا وشبيا أدبر دي السلام يا سومالي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعافية مسامح ويلاش الميديا هلا رد هي رع عبد الله نينك كذا شيء واشيدنا ورأيك ما دي حيادي قبل كسر ولا صدق دق مكريا كوسو عندي صدق دق مريابتي صدق دق مكريا كدقتان وأقول قالوا دقحبور يعبله عردك ما كانوا ريركو دقوا ما يشي كرتا حاجة قبل كسر كوكو دبيس يا تهريبة كودا مقنتي ودك واد كعرتين أدبر السلام يا شكرا أنت أصلا كوسو أفشاري وما سنتين وسلام يا وين سلام يا كلين أدبر السلام عليكم